السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام صاحب يال كسر دوّا سوما سوري كسر دوّا سومالي كومنت كلت عشرة كوساب سنة برشة لغة إنجليش كا عشر كان سعيوان وجود دين بوا عشر conversation وأنا لو عشر أي part one and part two part one وحوا conversation between two people discussing travel plans لو وقف وكشك يسنسه قرشين السفر كود كان كلامنا محاوايا conversation between a teacher wada sheekeys u dhaxeeyo macallin and his student iyo ardaydiis discussing an upcoming exam oo ka wada hadlayo imtixaan soo socda. Okay, waxaa marka conversation kan koowaad wuxuu u dhaxeeyaa wiil yiraahdo Axmed iyo gabar yiraahdo Sara. Axmed ayaa hadalkii bilaabay wuxuu yiri hey Sara. Axmed ayaa hadalkii bilaabay wuxuu yiri hey Sara. أحمد أي هذا الكبلاو وحجري hey سارة do you have any plans for the weekend هاي ساراي وحقر شام ملاد ما سميت معنا weekend أسبوعا weekend ده ودوّا مسلم وخميس جمعة وتاي ودوّا قال أنا سبتي أحد أي weekend هان وأسبوع أنا سشديسة يالي ده weekend سارة مركم عتريا ها I am planning وحنقر شيني to take a short trip إن معنا سفر يرجعون وبحه to the mountains حق بورها mountains بورها أحمد مكم حجري that sound amazing تاسو أرن في عن ما سوجيدن في عن are you going hiking ما واحد صعدة hiking وحلا مركب بورها لفولا يا بود كواه بود كده دار بورها لفولا يبرها عمال وطل لا or climbing يا hiking واسكت مركب واحد هرس شكله حنا أرجع ده or هديك وده حجرته labadan erey dhinaca kale kamid ka kala jiraan waa isku mid or macnaheedu waa ama hiking or climbing waa isku mid macnaha ma bufulitaan bad aadaysaa buulan saar marka maxay tiri yes ha and I will be probably waxaan sidoo kale macnaha maybe sidoo kale come overnight to come overnight macnaha halkaas ayaan ku nagaan doonaa camping ayaan macnaha camp waxaa meel yar tent inta surataad xagga overnight ayaan joogay sidoo kale what about you adiga iska waran bay tiri any plans wax qorshe ma haysataa any plan macnaha wax qorshe ma haysaa Axmed markii muxuu yiri I am thinking waxaan ka fikirayaa about visiting my grandparents inaan soo boqdo awoowayaashii ama waalidka hooyada aabbaha waalidkooda ayaa la yiraahdaa grandparents ama ayeeyo ama awoow marka la isku daro waxaa la yiraahdaa grandparents ayeeyo waa grandmother awowna waa grandfather marka la isku daro grandparents marka inaan soo boqdaan rabaa in the countryside oo degan meel magaalada ka baxsan countryside macnaha baadiye oo tuulo macnaha it is been a while waqti ayaa laga joogaa since I last saw them markii ugu dambeysay arkay waqti ayaa laga joogaa it is been a while waqti ayaa laga joogaa it is been a while since I last saw them waqti ayaa laga joogaa xilliga ugu dambeysay aan arkay صار محيط that sound nice تاسس sidoo kale waa arrin fiican how long will you stay there meeqa waqti macnaha how long macnaha dhanka shan bari lix bari miya macnaha meeqa oo xagga dheeraanshaha meeqa ay ku laga yaabaa inaad xagga joogtid how long will you stay there meeqa laga yaabaa inaad xagga joogtid Axmed markuu wuxuu yiri just for a couple of days maxaa laga wadaa marka couple waa labo mal macnaha iyo wixii aday hal bari soo raaca saddex bari meelaas a couple of days many days maalmo badan couple of days maxaa laga yaabaa labo maalin meelahaas just for a couple of days I will be back on Sunday waxaan soo noqonayaa Axadda okay saar maxay tiri cool hagaag macnaha waa arrin wanaagsan macnaha cool qof markaa wax ku intuu arrin sheego arrintaas macnaha ku waafaqsan tahay cool that sound nice that's great I hope the weather waxaan rajeynayaa cimilada stay nice inay ahaan doonto mid fiican for your tripkaaga Axmed wuxuu same to you adna sidoo kale do you need u baahan tahay any help wax caawimaad for packing inaan ku packing for camping trip marka boorso la xirnayo alaabta iyo waxa la isku xirayo ma u baahan tahay waxa qof macnaha kula xir alaabta oo tripkaaga u baxaysto camping trip
Sarah marka waxay tiri oh I think I have got it all under control waxaan u maleynaa inaan macnaha arrintii aan wada qorshay macnaha inaan under control aan waxba ina iga maqnayn under oh I think I have got it all under the control thanks though under the control maxaa waaye markii xaaladda ay gacantaada ku jirto macnaha qoladan security ka shaqeyso ka shaqeeyo markay meel wax ka dhacaan waxay leeyihiin markay ay leeyihiin markay wax dhacaan arrinta faraha ka baxday waxay leeyihiin markay arrinta macnaha hagaagsan markay waxay leeyihiin the situations under the control thanks dot waa ku mahadsan macnaha sidaad macnaha ii soo jeeso oo ah inaan macnaha caawimaadda ii soo jeeso oo ah inaan alaab ila xirxirto vocabulary focus erayada haddaan soo isticmaalo waxaa kamid ah weekend maxaa laga wadaa 2 days of the week labada maalin oo asbuucii Saturday and Sunday si wadamada gaalada aan soo sheegaynay laakiin wadamada muslimka waa khamiis jimco waa when most people don't have to work on dadka shaqeynayaan short trip maxaa laga wadaa a journey safar that does not last for a long time waqti oo safarka waqti dheer qaadanayn oo hadday wixii maalin barkeed iyo laba maalin iyo waxaas aad hal maalin ayaa la yiraahdaa short trip hiking maxaa laga wadaa walking in the mountains buuraha loo soconayo or countryside ama meelaha baadiyaha oo tuulooyinka ah magaalada ka baxsan for pleasure sa u soo farxad u soo hesho macnaha or exercise ama aad u soo jimacsato ka maxaa laga wadaa to stay in the tent inaad joogtid tendada usually outdoors macnaha ka baxso guriga marka ka baxdo grammar focus meeshan erayada la isticmaalo maxaa ka wadaa I'm planning to maxaa laga wadaa I will possibly macnaha maybe ama waxaan qorsheynayaa ama waa future tense waa macnaha marka wax qorsheynayso wax walba oo la qorsheynayo maxaa waaye andada future tense ayaa looga hadlaa maxaan kaloo isticmaalnay it has been a while since I last saw them maxaa laga wadaa past tense waa waxa la soo dhaafay macnaha it has been a while since I last saw them waa past tense waaye present continuous inta aan ku isticmaalo maxaa waaye I'm thinking about visiting waxaan ka fikirayaa waa waxa macnaha I'm thinking ing lagu daray waa ficil hadda aad isla markii fikirkiisa wadad waay okay halkaas waxaan noogaa conversationka koowaad kii labaad ayaan galaynaa conversation between a teacher and his students discussing an upcoming exam macallin oo ka hadlaya upcoming macnaha waxa soo socda hadda TV-da waa aragtay markay warar ku jiraan waxa la coming up ay lagu leeyahay xaysiisa inta lagu tuuro waxa lagu leeyahay coming up waxa in yaro wararka kamid ah lagu tusaa marka ma wuxuu soo socdo camal waay معلنك وحالي راه مستر محمد قبل لي مريم ايو لا لا يوسف لي هذا هو ما دوناه شركه هوستس محمد مستر محمد ايا بالله معلنكي good morning class فصلوا ارضي صباح وناكسن I hope everyone is prepared for the exam next week qof walba waxaan rajeynaa inuu u diyaar garoobay examkii ama uu diyaariyay examkii prepare waa wax la diyaarinayo waa idii marka lagu daro waxa waaye macnaha inaad diyaarsan for the examka next week soo socda does anyone have any question ma jira qof qabo su'aal about what will be cover wixii aan macnaha aan examka lagu keeni doono ama si kala diloo wixii aan soo akhrisano Maryam marka waxay tiri student yes Mr Muhammad macallin Mr Muhammad will the exam include everything examka ma ku jira wax walba from the semester aan soo akhrisanay termka waxaan soo akhrisanay exam ku jira معلم محمد محير مركز مستر محمد معلنكي good question وسؤال في عن مريم the exam will focus on the topics exam كوحو focus كصارية ديرة صارية موضوعية from the last 3 chapters قدام بيس chapter هذه صدق chapter قدام بيس موضوعية ده but لكن there will also be a few questions from محاجير دون السؤال ير earlier in the semester أو semester كوحي كهورية يوسف بركة أرضية الله وحير مع will there be any easy questions مكوجران سؤال إيسي ومعناه سؤالها القراءة or just a multiple choice أما وحيالا لك الدردورنا مكوجران okay محمد مركة معلق محيري there will be a mix of both ويسكو لحق جران معناه إيسي وكوجرتا multiple choice مكوجران you will have to easy questions waxaa ku jirta macnaha ama arki doontiin ama examku aad ku arki doontiin laba easy questions along with 20 multiple choice question iyo 20 su'aalood oo jawaabahooda
ay wataan kala doorasho. Marian ayaa hadashay waxay tiri, what about the format of the essay? Formatka maxay yihiin? Do we need to write along essay? Ma kuwa waxa dheer wax badan la qoraa miya? Bas maxaad muxuu yahay marka? No, they don't need to be too long. Maya ma aha wax dheer, kuwa dheer ma aha. Just about 150 to 200 words. Waa 150 ilaa 200 eray. Make sure waa inaad hubisaa you answer su'aalahaaga, the questions clearly. Su'aalaha jawaabahooda waa inaad hubisaa si waadax ah. And use example aadna isticmaashaa tusaalooyin from the lessons oo cashirka ku jira. Yusuf marka muxuu yiri, can we use the text during the exam? Textbook ma isticmaaleyna xilliga examka? No, macalinka marka wuxuu yiri, no, this is a closed book exam. Kana waa closed book exam, so you will need to study ahead of time. Waxaad u baahan tahay inaad si akhrisatid imtixaan ka hor. But laakiin don't worry hawlwelin, if you have been following haddaad la socotay along in galaaska macnaha haddaad la socotay oo gambinaynin, you should do well. Si fiican u baasi doontaa. Marian maxarka waxay dhahay, thank you for the clarification. Waa ku maasan tahay inaad noo kala cadayso. Mr. Mohammed, I feel a bit more prepared now. waxaan umaleynaa inaan xoogo aan diyaar garoway. Mr. Mohammed wuxuu yiri, you are welcome Marian waa soo dhawow. Remember xasuusnow, the key furaha is to review your notes. Macnaha furaha examka inaad guulaysatid waa inaad waxaad soo qoraysay aad dib ugu naawataa. And practice writing short easy, iyo inaad practice garaysaa inaad macnaha qoritaanka. Vocabulary meesha soo isticmaal maxaa kamid ah semester maxaa waa half of the academic year, kala barka sanadka academic-iska. Multiple choice maxaa laga wadaa type of question, qayb kamid su'aalaha with several possible answers, su'aal jawaabooyin fara badan wataan, to choose from inaad ka doorato. Essay maxaa laga wadaa short piece of writing, wax yar oo qoraal ah on a particular subject ku saabsan mawduuc gaar ah. Close book maxaa laga wadaa close book exam maxaa laga wadaa an exam waa exam imtixaan waaye where student cannot use textbook oo ardayda loo ogoleen inay textbook isticmaalaan or notes ama qoraalada yarka ay haystaan isticmaalaan. Clarification maxaa laga wadaa the act of making something clear, waa marka wax dad u kala cadays ayaa la yiraahdaa clarification, or easier to understand ama aad u fudaysid qofku inuu fahmo. Okay, grammar focus meesha aan focus garan maxaa waaye future tense. The exam will focus on examku wuxuu ku imaan doonaa you will have to easy questions macnaha. waxaa jira su'aalo exam question and conversation ka hore oo ah inaad okay kuma soo darnaa umaleynaa laakiin question conversation kan dambe ay la socdaan su'aalo. Marka su'aalahaas isku day inaad kasoo jawaabtiin. waxaa waayo how do you usually prepare for exam? Sida aad imtixaanka u diyaarisid. What kind of exam do you find most difficult? imtixaanka kee kugu adag? Kan su'aalaha watamiya jawaabaha mise kan oo caadi la qoraayo? Have you ever had teacher macallin weligaa ma la kulantay who give you a good start tips oo talooyin fiican oo akhris ku siiyo? What waa maxay ahaayeen? هذا يا إن سلام يا سلام الله تعالى ورحمة الله وبركاته.